The stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. كي معنا قصوك عنقي وقت الكرم بشكره وير أنا وعاي وقايلنا تاي فيروي وصو الصحور اللي باركي jacaylkii buundada waa mid u galay buuggiisa waayaha nolosha jacayl dartiisa ayuu buundada iskaga soo tuuray cabdi balse wuxuu ii sheegay inuu ka waayay aqbalaadii waayaha caashiqa qof iyo jeclaaday wallaahi wiilka horta qaskaas waa jiraa laakiin waa iska xanuunsanahay beriyaas waa baxay u sata meesha ku kormashay karmiir ma baahanba markii iskureeyo buundada ميرنا مهانا أنا صاص وعاء دعوة مخلوات أتبيجنا ميسين ويجي صوت لو هاد سناي عبدو حوارت مدح وجو مدح سوك عايز خوا ليجنا متجري كي معنا سوك عنقي وقت الكرم بشكره وير أنا وعاء وقايلنا تاي فيروي وصو الصحور اللي باركي marka laga faaloonayo arrimaha jacaylku waa dhacdo dooda oo aanan wali xal loo helin ruux kale oo noloshiisa ay ku qanacsan tahay una hayo hami joogto ah iyo dareen xadaaf ah iyo sidoo kale firfircooni joogto ah ayuu dareemaa jacayl markuu ruuxaas u arko ayay isla wadaagaan boogta xanuunsan ay u baahan in la wada daaweeyo dhacdadani ayaa ah mid ay hadal hayaan dadka jooga Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dibadda nolosha cabdi way dhaantaa sidii hore balse hooyadiisa ayaa weydiiyay maxaa ka jira jacaylkii wiilkeeda uu buundada iskaga soo tuuray maxaa sababay in wiilkeeda uu iska soo rido buundadaas waa sidee xaalka caafimaadkiisa cabdi su'aalahaas iyo sidoo kale kuwa kale ayaan weydiiyay hooyada dhashay cabdi bal ka waran dhacdada sidee u dhacday wallaahi aan horta ma ogeyno sax aan meel kale jiifsan meel kale oo jiifi aabihiisna waa baxay aabaas waxaas baxay ayuu baxtay milam saac malaade ninka aabaan iska baxay la sugay maalintaas lii soo wacay waxaan joog isbitaal anigoo wadnaha iyo xanuunooyno naxtinkii cunuga ka naxayo khaliin loo soo sheegay anoo wareesan ali soo wacay mashquul anigii lacagtii si aad dum sheekari hadoo la yiri wiilkaada baawur loo soo wada la dhahay anina farxad baan ma sheegay qof bida aadna hadoo maanta dhay cabdi baawur loo soo wada dhahay ma sha Allah dhawl qofkaas waa u duceey ducadii maxay tartay ina lacagtii li khaat oo damban li soo laabano nabarkin loo dadan sidii meeshii hormudii tagay hormud waxay dhahay lacag mar hore la baxsaday lacagaan la sheegayo kala loo halahan lacag la sheego ummadna Soomaali isoo dhiibti waxad isoo gaar ma jirto dad badan aan barkeed ka faa'iideystay lacagtii macna barkii nabar kor saartay si uu socdo oo wax kood abdi oo ah wiil kala sheegay inuu jacaylka dartiisa uu iskaga soo tuuray buundada ayaa qoyskiisa xilligan waxay u baahan yihiin caawinaad taas oo ay ka dalbadeen dhammaan bulshada Soomaalida inay la soo gaaraan caawinaad degdeg ah ay rabaan oo isoo tuuraan oo isii haayeen walaalnimada jirto inaan nabarkay ul xiriiriyaan wiilkay hadda alxamdulillah walaalihi yakin waxay soo dhiibeen waa u duceey مرادكود إلى وسالو هذا سحب قد حب إلى مقليو عذاب إلى خبطه هذا مسعوك راي حالة ديسكور من العاصمات والله الحمد لله ما شاء الله مقوات كستوى رونيا مسخش سوا قلا حليه سحار لا خاذا متاجنا حد الحمد لله إلهي ما هتواي ولا ليه مركز دق يدبت راسه وشيقة مال هاد أفسار ملا عنو قل داوى وليمون إنه ولا ليه وحجعلن قرب يسيان العكشلين ما هاستي سانا حالي ديد ميل هاد أفسار ملا عنو قل داوى وليمون إنه ولا ليه وحجعلن قرب يسيان by your side.